muhiimada shirkan uu leeyahay qaxootiga Soomaaliya waa shirka ugu koowaad 26 sano intay Soomaalida ka soo qaxeen wadankooda ku soo qaxeen gobolka hadda ay ku nool yihiin Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Yemen iyo Uganda oo ilaa 900,000 oo Soomaali ah ay ku soo qaxeen muddo 27 sano ayaa fursad ugu horeysay oo hadda laga hadla waxay noqotay xal waara si arintan looga gaari lahaa maxay lama dhici karto shacab rajo leh nolol raba inay 25 sano in ka badan ay xaraq qaxooti ay ku jiraan marka madaxda gobolka muddo badan waxay baadagoobayaan si Soomaaliya ay nabad u noqon lahayd si loo helo xal qaxootiga Soomaaliyeed oo daafaha caalamka ku daadsan inay wadankooda ku soo laabtaan oo wadankooda dib u dhiska ka qayb galaan oo sharafta ay leeyihiin ilaa qaxooti nama qof ku nool sharaf ma aha waxa ugu muhiimsan ee la filayo shirkeen ka soo baxan waxay tahay koow in qaxootiga Soomaalida ee dalalkan igad iyo Yemen jooga aan la lagu khasbin inay Soomaaliya ku noqdaan laakiin iyagu haday iskood u doortaan inay Soomaaliya ku noqdaan in loo ogolaado inay ku noqdaan labo in sida dalalka qaarkood ay bilaabeen already oo ay Uganda ka mid tahay in loo ogolaado inay dalkaas xataa dhexdiisa ku dhex noolaan karaan oo ay ganacsi ka samaysan karaan waxbarasho ka samaysan karaan haddii rabaan xiriyaha intay soo guuraan magaalada soo degi karaan xorriyadooda in la wanaajiyo marka midda kale waxbarasho kelima ah inay socon karaan inay caafimaad raasan karaan inay xara ilaa xabis weyn ani aragtay ilaa xur qafka ma aha marka xurnimadooda rasmi inay heli karaan marka arintan waa arin u baahan inay hadda dib looga wada hadla maxaa yeelay aragtida aan qabnay waxay ahayd xaraq qaxooti inay noqonayso wax waqti yar ah laakiin xaraq qaxooti oo cimri daa'in qaadanayso u baahanta marka arintaas inay wax laga bedela oo noloshii dacalka ilaa waxaan soconay waxay socotaa generationkii afraad kii saddexaad oo Soomaali ah qaxooti ay sii maraysaa marka rajo in loo abuuro nolol loo abuuro isla markaasna diiradda la saaro Soomaaliya si nabad ku noqon lahayd waxa jira dhaqaale aad u badan oo loogu talagalay arintan in lagu hirgeliyo dhaqaalahaas wuxuu intiisa badan aadi doonaa in dadka go'aansaday iskood u go'aansaday inay Soomaaliya ku laabtaan laga caawiyo laabashada laba laga caawiyo dib u degistooda dalka goboladii ay ka soo jeedeen laga caawiyo sidii ugu noolaan lahaayeen degis kaliya ma dadku nolol ay u baahan yihiin ganacsi inay sameystaan haday beeraley ahaayeen beerahoodii laga caawiyo haday xoololey ahaayeen xoolahoodii in laga caawiyo haday kalluumaysato ahaayeen kalluumaysigoodii in laga caawiyo si kastoo ay ku noolaan karaan runtii in laga caawiyo loo sahlo inay dalkooda ay dib ugu noolaadaan dalkeen hadda waa soo kabsanaya fursadaas soo kabsashada in looga faa'iideysto diyaaleedmo